tallaabooyinka aad u baahan tahay marka aad rabto inaad wax akhrisato ilaan qofku wuxuu u baahan yahay inuu barto sida wax loo barto waxaan ku bilaabeynaa in qof kasta oo annaga naga mid ah oo adduunyadan jooga wuxuu u baahan yahay inuu qof kale ka duwanaado jecel yahay in meesha uu joogo inuu ugu fiicnaado waa jecel yahay qof kasta in aad dadka ka duwanaato oo aad fariid noqoto macnaheedu maaha inaan buundooyin badan keento maaha keliya buundo keliya kuma xirna imtixaanka iyo in maaragtay aad qof caan ah aad noqoto muhiim ah waxaa wanaagsan inaad muhiim tahay mise waxaa muhiima inaad wanaagsan tahay haddaad wanaagsanaato waxa kale waa iska imaanayaan meeqa qofaa caan ahoo laakiin aan wax fiican ku caanbixin qof intuu dad wax la wadaagay waxbarasho helay jaaniskii geed inta la waraabiyey bixi waayey baadhi badanta waa laga yaabaa moogtahay geed si loo kala duwan yahay u kala qaadana marka geed waraabi waa bixi waayey xoolo ama waxyaalo kale iyo wax sii waa soo weynaan waayeen oo waxaa lagu yaqaanay hadduu jidiin wax laqo in jirka uu wariyo jidiinka wax waa laqayaa jirkana marka jidiin waxbarasho kugu socda waa inuu jirkaagu maskaxdaada warisaa soo saas maaha hadduu cunto ahayd yaa hadduu jidiin wax laqo jirkaa wariya haddii aad waxbarasho qaadato waa inay muuqataa marka waa wax ilaahay bini aadamka dhan u kala duwa qofka jaamacad dhigta madrasa dhigta iskool dhigta macahad dhigta kulli waa u baahan yahay qofka inuu qaato waxyaalahaas oo dhan marka qof kasta suu u gaaro wuxuu ku dadaalayaa waxa anfacaya wixii aan anfacayna waa iska dhaafaya saad fariid u noqoto waxbarashada xirfadaheeda aad si meeshii la rabay oo haddii meesha ugu dhow inaad ku heli karto oo lagu yidhaahdo dhegtaadii bidix meeday aawa dhegtaadii bidix haddaad saan tiraahdo waxay ila tahay dariiqa ka dhow waa adoo saan yidhaahda saasas ma saanna waa jirtaa saanna waa jirtaa marka meesha ugu dhow aan ka soo qabanno dariiqa ugu dhow aan wax ku barto dariiqa ugu dhow aan meel ku gaari karo dariiqa ugu dhow aan maaragtay ku gaaro oo ugu saxsan haddana inaan noqon karo dariiqyadaas haddaan qofku uusan wax yar u sabrin oo waxbarasho ah noloshu wuu weynaan doonaa xilli wuxuu noqon doonaa uusan uu aada u dhibtoon doono waa aragtaa baan u malaynayaa qofka gaari gacanka wada ee fuustada wada iyo qofka loo wado yaa dheereeya kan wadaa dheereeya oo alaab culus wada soomaa saas kii kalaaba war iikaan uga ordaya ama qofka alaabta wada haweenta marogsinta alaabta kugu wada way kaa dheeraysaa dan baa markaa haysa haddii hadda qofku uu waxbaran waayo oo meeshii la rabo berri wuu dheereen doonaa asoo dhididaya soomaa saas asoo dhididaya oo ka dhib badan sidii ayuu aada u dheerayn doonaa laakiin waxaa roon maanta inuu dhaqsado oo uu hawshiisa uu kasoo dhalaalo maanta laga rabaa marka waxbarashadu soo kuma fiicna marka inta aad idinka waqtiga aad haysataan fursada hadda aad haysato waxaad u haysaa kansho waxaad u haysaa fursad waxaad u haysaa shiidaad soomaalta inta waa u haysaa af soomaali macnaha waqti u haysaa maanta aad geliso waxbarashada xataa haddii qofkii sanadka uu rabay uu ku dhaco sanad kale uu ku dhaco fashilaad ma aha qofku waxaa fashilaada inuu ka tago soo saas maaha waxbarasho inaad iska dhaafta fashilaad ah laba yaa fiican waxba iyo wax un lagu daray wax weyn noqotaa laakiin waxba lagu daray waxba soo saas maaha in yar ku dar in yar kale ku dar waxba dhib ma leh fashalku ma aha in aad hadafkaadi gaari weysay fashalku waxaa weeye inaadan hadaf lahayn wax hadafa malihi taasaa fashila laakiin fashilaadu ma aha wix aan rabay waa gaari waay waxaan rabay waa gaari doontaa waxba dhib ma leh laysa alfashal anlaa tabluqa ahdaafak bal alfashalu an laysa laka hadafun fi lxayaa fashal waxaa ah inaadan waxba qof ujeeddo leh waa gaaraya maalin un waa gaaraya hadduu dhibtoodo gaaraya qolo walba waxbay horumaraysaa soo maha ganacsato ganacsigooda ay horumariyaan qolo kastoo wax qabsato waxooday horumarsadaan haddii qolo meeshii loo dira annaga tana loo dira waxbarasho wey waa inaan waxbarashada horumarinaa
maxaan uga hadlaynaa mawduucan maxaan naga keenaya inaan hawshaan qabanno waa hawsha annaga noo taalay oo aan rabno inaan ku horumarino marka ujeedada ugu weyn oo laga hadlayo warshad kasta waxay soo saartaa wax soo saarkeena rabnaa inaan hagaajino haddaad qof u timaado waxaan rabaa imtixaan kasta ardayba ma kugu imaanaya wuxuu leeyahay saan wax u aqaano oo imtixaanka markaan galo wax oo dhan baa iga kala dhumaya qofka markaad tiraahdo iyan waa ceeb anna aan leeyahay laakiin saan iyo saan baan isaga xaliyey qofka markaas waxaa tala siisay waxaa u daran qofka inuu qarsado de waxaa qarsato way ku qurunsadaan qofku ma ku qancaya haddii wax la siinayo haddii inteena loo qaybinayo lacag loo qaybinayo maxaa ku qanci lahayd qaybta badan in lagugu daro kuwa la siinayo qaybta yar in lagugu daro iyo kuwa dhexdhexaadka lagu daro inteena kee jecelna qaybta saraan jecelna soo ma qof kasta qaybta saraan jecelna waxaan qaybinayno marka waxaa la qaybinayo beegaada ka buuxso adna maado ma jirtaa aada isleedahay darajo fiican aad ku haysataa laakiin maado kale oo darajadeeda aada hooseyso taasaad uga fiican tahay soo ma jirto asbaab kasta ha keento laakiin maado darajo fiican 100 aad haysataa 101 waa keeni gaartayba waa ku sigatay 101 inaad dhaafto laakiin mid kaloo aad 80 haysataa uga fiican tahay soo ma macnaheedu darajada kaliya ma aha waxa loola jeedo waxa waaye xagee maxaan qaban karaa waxaan bartay ma ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka maartay umada waxa la yiri waxa tihiin kuntum khayra ummatin sasasma ukhrijat lin-nas khayra ummatin ukhrijat lin-nas wixii lagu sheegana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhuna 'anil munkar hadii lagu dhahayo waxa noqonaysa ardada ugu fiican waa in gadaal wixii la sheegi lahaa iyadana la keenaa ardada ugu fiicanaad tihiin maxaa ku fiican tahay sasasma maxaa ardada kale uga duwan tahay qof kasta waa jecel yahay maalinta oo jaa-isada la bixinayo inuu koowaad noqdo qaar waxaa jira marka imtixaanka la dhajiyo warqadaha jeexa ma jiraano iyo qaar jecel marka imtixaanka la dhajiyo in cabaar uu ku sii dhagsanaado waa jira soma haddii website-yada la soo geliyaan qaar jira ma ayaa baalka ahmada naga aamusiya marka adaa yaqaan meesha aad ka dooranayso taas waa la kala duwan yahay qof kasta إلا قف عمل وحبو قبنا وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله هوش اللي قبته والله مو ولا جيده والله واركايا marka waa arin u baahan dhiirigelinteeduna diinteena qabtaba ninkii Jabaanka ahaa ee loo diray dalka Jarmalka si uu u soo barto engineeringka matoorada ninkaas intuu meesha tagay 10 kaliya ma soo qaadane wuxuu ku talagalay in wadankiisa uu wax ka bedelo xagga matoorada iyo mishiinada wax ka bedelo matoor waxa soo gatay gurigiisa hal u kala dhigdhigay shiday taas waxay keenaysaa inuu u sabray u dulqaatay u ka sheekeena marka mabda ugu horeeya waa kana cilmigu maalin kaliya ma yimaado tartiib ku yimaada hal maalin wax ma gaartid meel laakiin tartiib ku celi isku dar mid kala saar waa si kala daa u dhahno guushu ma aha albaab la galee waa jaranjaro soo ma hasaas guushu ma aha albaab laga galo ma aha guushu laakiin guushu waa heer jaranjaro kale mid kale inkaas waqti badan wuxuu ku bixiyay Jabaanna waa wax ka bedelay marka waqti badan lagu wuxuu ku bixiyay wadankiisa intuu meesha tago 10 soo qaato oo ayaga ka soo gata ma aha markuu yimaado inuu asagu sameeyo waana guuleystayna Jabaan waa ku hormareen taas laakiin waxa u baahan tahay u dulqaado nina waxa la yiraahdaa Antar ibn Shadad wuxuu weydiiyay maxaa waa geesinimada takent geesinimada la timid kent wax kala ma uu yiri waxa weey ana ku sheegay idib gacantaada idib gacantiisa u dhibi bal afka gasho ee ruug waa ku ruugayay uu ruugay ninkii baa yiri wuxuu yiri haddaan dhihi rabaarin waaba dhihi rabay intaasaan isdheernahay waxa dhici karta inuu macallin intuu gala soo galo aan tababarnayn uu idin yiraahdo waxa idin dhigayaa maado laakiin maadadan way adeeg badan tahay way adag tahay inta aad u soo dhigayay wax ka ku guuleysta waa la waayay markaas qof kasta iska qaadanaya soo qof kasta macallin gala soo galay
sabuuradu wuxuu ku qoray xisaab wuxuu yiri xisaabtan waa xisaab adag cid ka shaqeysana waa dhif waa la waayay hatta dadka xisaab ku takhasusay iyo saantiisayaasha xisaab gacantii ka taageen ee ardayda sabuuradu ugu qoray hal laga shaqeeyo wax ka shaqeeya la waayay mar dambe wiil gadaal fadhiyay oo iska hurdeysnaa ama madax soo qabarkii la bixi rabay markaas wuxuu u qaatay in shaqo guri la isu diray homework exercise u qaatay in la isu diray wuu qortay gurigu u qaatay habeenkii oo dhan buu la fadhiyay wuu ka soo shaqeeyay subaxii macalinka u keenay haddii la fiiriyo waa sax muxuu ku guulaystay ma taqaanaa wuxuusan maqlaynin way adag tahay ma maqal asagu maasas waashaan waa adag tahay asagu ma maqal intii waa adag tahay maqashay qisooyinka khiyaaliga ee la sameeyay waxaa ka mid ah tartan rah ay sameeyeen oo barkad meel kora loo tartamayay markaas markay ku ordaan kor u socdaan mid baa ordaya bilaabaya markuu kor sii marayo waa dadka kuwii kala qaylinaya waa soo dhici rabtaa waa soo dhaca mid kale waa soo dhacaysa waa soo dhaca markii mid yar oo rah ugu yaraa kor u baxay waa soo dhacaysa jaa-isada isagaa la siiyey haddii la fiiriyey muxuu ku guulaystay wuu dhagalaa isagu wuxuu u guulaystay isagu dhagama lahayn marka haddaa waxyaalaha qaarkood lagaa sheegayo ama dadku ay ku dhahayaan ama adii iska aamintada wax ku dhistaa dhagaxa lagu tuurayo yuusa ku dhibinay guryo ka dhiso dhagaxa lagu soo tuurtuuro wax wajib ku dhibinay guryo ka dhisa asaga laftiisa saas maaha inta adiga dhagaxa faham ha u qaadan maanta dhagabasha ku jira dhagaxa meel dhigo asaaba guryo ku dhisanaysaa dad badan ama waa lagu sheegi doonaa waxa uu doonaa waxba qaban kartid ama adaa is oranaya waxyaalaha salbiga lama fiiriyo dadka wax qabta dadka wax ka sheega taalada loo dhisay magaceed ii sheega ee ku taala meena dadka wax qabta ee dadaala dadka dhaha muxuu qaban karaa hadhow qofkii wuxuu qabtay qofkaas taalo ama iskool lagu magacaabay ama meel lagu magacaabay oo leeyahay meel heblo waxa loo bixiyay qof hebel oo wax qaban waayay ma aragteen ma jiro marka waxa ugu daran qof dadka la yatamayaz wala yuhibbu almutamayizin qofku ma rabo inuu fariid noqdo dadka fariidka ahna ma jecla asaguna ma saageesa weyn looda harka uma ogolo isaguna ma harsado fashal ha ka baqin fashal soo noloshu ka mid yahay fashalka waa dhacdo ka mid ah dhacdooyinka nolosha hada waa fashil ma ad ku dhac waa fashil ma fashilanta hade naftaada waxaa ka buuxisaa iimaan iyo rajo wanaagsan dadaal waa gaaraysaa ilaahay ku kalsoonow waana loo ballan qaaday qof kasta oo dadaala inuu helayo qofba meel ku fiicaya meesha aad ku fiican tahay wax ka xooji iktashif mawaahibak qof la leeyahay wax ugu fiican yahay ma jiro wali wax badan ku fiican tahay marka hubi waxyaalaha ku fiican tahay raadi hadaa istiraado meeshaan waxbarashada kuma fiicnid waa ku fiican tahay hadii ka meesha kale uga fiican tahay raadi waayahay guusha 99% waa dhiid inaad saa u sayrto 1% waa inuu ilaahay ku iftiimiinta kale dadaal laga rabaa 99% waa daal iyo dhib halka xabana ilham ilaahay ku ilhaamiyo waxyaalaha qaarkood marka daasho man marka qaarkood waxa laga yaabaa ina shay u kaalumo oo raadiso ku dhibtooto marka daasho kadib soo kugu soo dhacdo meel hebarta ma ka fiirisay meelaha ka fiirisay meeshaad ka helaysaa laakiin hadaa taa u dhibtoon lahayn meelaha kale hadaa ka waayi lahayn halkaas meel ma aadeen inta kale ka taweysay waa waxyaalaha meel lagu gaari karo kelmadda la yiraahdo sawfa noloshaada ka saar baraan sameyn doona oo ma hadda sameeyay beritu waxba dib dhigan nolosha ka wasa nolosha dhanba iska ilaali waxyaalaha erayada fashilka leh sida aan fashil weeye maadadan waa adag tahay maada adag ma jirtay maada cusub ba jirta maada leeyahay maada hebel waa adag tahay ma jirto laakiin maada igu cusub wala xisaabaan adkayn wala maada kale aan adkayn wax adag ma jiraan horitabin oo ah awal bi awal priority shay kala horeeyaan maadooyinka aad baranayso
midda ma waxaa baranaysaa kugu adag mise midda kugu fudud kee ku bilaabi lahaydeen mar kasta waxaad filataa in naftaadu ay ku jirto guul joogto ah isku day inaad wax fahamto dadka kalena aad fahamto naftaada faham dadka kalena faham labadaba in lagu fahmi karo aad wax fahmi karto waxaad raadisaa markaa xal raadinayso xalka ugu fiican raadi waxaa laga yaabaa qofku inuu tiraahdo xalka ugu fiican kee wey haddii hadda meel uu aan aragno jid tareen dhinac oo laba dhinac u kala leexday jid tareen wey laba dhinac u kala leexdaa jid tareenka ayaa awal mari jiray waagi hore laakiin waa jabsan yihin jidna waa jid fiican oo tareenka jidka xoogaa burbursan oo halaysan hal cunug yar baa ku cayaaraya jidka kalena 7 ilmood baa ku cayaaraysa adiga waxaad taagan tahay meeshii isgoyska ah tareenka inaad u sheegtaa la rabaa dhinaca fiican uu mari lahaa ma dhinaca 7 ilmo ay ku cayaarayaan maraa mise dhinaca halka cunug ku cayaaray halka ugu fiican inaad siiso Soomaa iyo talaba maxaa sameyn lahayd midka halka cunug 7 hadaan marsiina ka warrama khasaare miya oo ma ka fakirin jidkan jajaban baabuurka asaga meeqa saaran meeqa qof asaga saaran haddii la joojin karo hal la joojiyo waa xal Soomaa saas hadduusan istaagin in ay dadka hadduu gadoomo meeqa qof saaran boqolaal ba saaran مثلا قفك هذا مركي أو وحبرنا يو مرة قارك وحلقوا مثالا سيدا كبدا عيارته وقالي كبدا هذا كبدا عياري قرونك وحقوق سماميل لحظة جولك كلا يقول كينا جولك وحقوق بهاي الدفاع عيار نحن ولو بهاي لحظة إن كان له حلو بهاي هجوم يوارر marka waxbarashadu saas weey waxay u baahan tahay marka oo horeysa inaad waxbarashada aad sameeyso casharadii ku noqoto waa difaaci dhaxda ina aad u ciyaar taqaano oo inta dhaxda lagu jiro waxbarashadii waxa hadda muraajacayso isku celinayso aakhirka hujuumkana waa imtixaanka hadaadan marka hore difaac adag lahayn dhaxdana aadan ka ciyaari aqoon imtixaan ma dhalin kartaa waxyaalaha qaarkood waxa taqaanaa waxa aqoon lagu xiraa soomaasas waxa taqaano iyo waxa aan aqoon soo la isku xiro laba shay taqaan ka soo qaad inaa quraanka baranayso suuradan iyo suuradaas walaa waxa ka dhaxeeya waagaan caruurta ahayn ilmaha ahayn quraanka markaan suuraha qaarkood kuwa adkaanaya ya suuratul kahfi waxa ku taala فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتخرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صمها تنكو حكتر بحاوة لقد جئت شيئا نكرا مركا إيقو أدكاتو اسكو قلقلده باو حاير ورطو ألف إيو نون ياهو الرئي مركا هربا ألف كي إيو نونك ياهو الرئي ألف هذا كدب ألف هرمري سوسوسوها مركا وإيقا حرتي بحا شيء أنا قانا كو حرتي ألف إيو نون ياهو إمرا ألف كاهو الرئي نكرا قضا وحا جرتا مالك تعالى القرآن فجعلناهم الأسفلين إيه فجعلناهم الأخسرين سو ما جرتوا والنبي إبراهيم لوغها الله إيه مركا قرقوا يا وحايري هرت لبوضة سورة ده هوسيسا أسفلين تهوسيسا قرآن أخسرين تهوسيسا الرئيس سو ما مركا سورة ده لمرة في لنا يا سورة الأنبياء من مدنيا من تاسا على مركا فجعلناهم الأخسرين هرمري أسفلين أسفل يا أيوة تضموا أيوة مركا شيء أتقانه شيء كلا كحرم أسكو حرك هرتا سورة الرحمن مرك البرنجر الدكسية حتى أريجا جابنا لقو برنجري سما خرام يوكو وحيالها مسكح هذا ساعدي كم تاع أو مسكح هذا هذا هو تكوي لندن تا لكن هذا كبره اللي قولنا رب وحبرشة يا إنا ربطة يا روم هو يلي ما إلى ربطة أباهي بقى يالله لكن أنا ما ربه لكن أنا أدري ربطها كفي عني وأدري رقبط وهيس هن كاجا إنه وين هذا أنا رابيني أنا ربا قفك سوء استاجية قفك هذا وحبرنا يا كتاب برنا يا ما وحلا آخر سنة وحلا يا با أنت هذا القف عالم النقون
waxaa lagu soo bilaabay hada faslun fasalka aan soo maahan fasal lagu daray fasal kala lagu daray birimo sugun markaas aqal jibisay hal maalin may marka wax baranaysa soo kaayay waa lagu adoo kufkufay waa lagu amaanay waa soo istaagtay hal mar ya waa joogsaday rabbi baa joojiyay waa lagu amaanay waa dhiiranaan waa joogsaday rabbi baa joojiyay qofka fiiri buundo fiican keena waxay u dhiibtaa buundo kale fiican waxay u sii dhiibtaa buundo kale fiican wanaagu dhalaa qofka inuu han leeyahay waa kayd aan dhammaan ina adigu waxa rabto kanzun la yafda hadama soo adi ma rabtid hada wax ajashahay hadii la yiraahdo qofkiin yeeri hadii awal lagu kicin jiray habeenkii oo lagu yiraahdo bari subax ma safar baa aadaysa diyaarad baa raacaysa meel u duulaysa ama meel baa aadaysa meel ajashahay ay tahay ma u baahantay in lagu kiciyo Umar ibn Abdul Aziz al-khamis al-khulafa ar-rashidin wuxuu leeyahay naf waxaan leeyahay wax tabid badan wax rabta markii hore waxaan tabaniyay inaan helo amiir noqdo waa helay khilaafa nafteedu jeclaatay iyana waa helay hadda waxay nafteedu jeceshahay janno waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan helo awal waxyaal hadda waa ka tagay waxaas waxaan rabaa janno marka qofku inuu leeyahay hankaas aan dhamaanayn al-ataa yusawi al-akhda waxaa bixisa helaysa waa helaysa hadaa buuga wax badan akhriso wax badan ku siinaya hadaa in yar akhriso in yar ku siinaya soo maasaas inta bixisa helaysa qof walba inta uu bixiyo helaya waa isu dhigmaan soo ma islaag ma ho inta waqti aad siiso waxbarashadaadu bay waxbarashadu iska siisaa man jadda wajad ay man zara hasad qofkii dadaala waa gaara qofkii beertaana waa goostaa saas ma qofkii dadaala waa helaa dadaalkiisa qofkii beertaana waa goostaa naftaada ra'yiga ka qabta bedel maxaa isu haysataa adiga qof aan wax baran karin ba maxaa isu haysataa qof aan waxba baran karin iska bedel saa naftaada u haysato waxa tiraahdaa waa yeeli karaa waxaas waa qaban karaa ka warrama ardaygan yiri sanadka markii uu go'aanka gaaray waxaan jecelahay sanadkan imtixaanka inaan ku baaso seeyahankiis ma sareeyaa soo ma hooseeyo imtixaanka waa inaan ku baasaa hooseeyaa waa inaan kow noqdaa ama saddexda hore aan soo galaa dheh naftaada ana waxaas ay wadag yihiin yaa kuu sheegay isla adiga isma sheegino waxaas kuguma adka wax kugu adag baa marka bini aadamku waxa ku jira taaqa aad u badan karti badan ay ku jirto ilaahay kama dhigee annagoo hadda halka wax ka sharxayna mid qori la haaday haduu meeshan ka soo galo dabaqaas goorta aan ka degan ma naqaan dadkiinaan iyo kooxdiina qofka annagoo banaanka isku wareysan doonaa daaqadaas hadda hal degta hadii la yiraahdo qof laakiin hadhow dambe midba meel war la subahay qof wal banaanka la isku wareysanaya inta iga jeexantay iyo inta waxaas iyo bijirtaan marka qofku waa kari karaa waxaas dhan waxyaalaha oo isku barogaraamisay oo aan fiicnayn iska baabi'i program ku jira ya aniga horta baad hebel ma baran karaba yaa ku sheegana baran karin program isgelisay hore waxa dhahdaan cajalada ay ugu jirto ma horaba shay hebel inaan sameyn karin cajaladeeda ay ugu jirtaba anu ma ihi qof aqli badan haye oo aqliga laftiisa aqligaaga miyaa ku sheegay aqli badan tahay bas aqli yarta soo isaga leema aad isticmaalin maalinta koowaad ee jaamacadda la furayo maqnaanta miyaa badan mase imaashaha maxaa ina baray waxa dabeecadaas waaba la furay maalinta koowaad ee la furayo maalintaas waxa la bixinayaa waxba la bixinayaa ka warrama soo ma imaanaysaan waxa la bixinayaa 10 way wax kala ma ogaana aan saaxiibanaha galaas soo galay oo nin aqoonyahana markuu wax u sharxuu yiri yaa su'aal qaba gacan taagaa la waayay markii dambe gabar baa gadaal gacan ka taagtay
markay su-aasha ka jawaabtay wuxuu wata hadiyadu siiyey markaasuu yidhi yaa haddana su-aal qabo ma soo badanayaano mid kuwa kale gacan taagay hadiyadu siiyey ooga jawaabay yaa qaba waa soo bateen marka adiga ma isdhiiri gelisid ma in adi lagu dhiirigeliyaa rabtaa meeshaan miyaa wax ku arkaynaa soo ma aragna hungurigu meeshuu ku jira laab ah madaxiina meeshuu yaalloo weyn meeshaa laabka maxaan ka rabnaa habeenka mugdiga ah waa habeenka mugdiga ah qof annaga inteena qof afkiisa la gafa cunto ma nagu jiraa haddii koox saddexdiinaan la isugu kiindaro bariis saxan buuxa oo wixiisa u dhan yihiin oo la kala boobayo korontadu ay tagto amaad la gafaysan afka mid baa meelaha isaga dhufta lafba suuragal baa qof ka suurooda ma jira sidee bay u suurtagal tahay in habeen mugdiya aan af yar cunto la waayo maalin weynna madaxaas aan la waayo waxbarasho suuragal biya maalinta weyn madaxaygii waxbarasho waa la weynayaa habeen mugdi ahna afkaa yar baan cunto la helayaa tababarkaas goorbaan qaadanay wiil ardayaa ii yimid isagoo aabihii la socdo markaasuu yidhi macallinow duruustii baa igu badatayoo waxaan rabaa inaan baxo khuruuj aabihiisaa la socda waswaas baa i dilay maxaa ka waswaasaysaa shaydaan baa i wareeriyey muxuu ku odhanayaa markaan tukadu i leeyahay allaahu akbar ma aada tukan oo kan ku odhanaya ma tukadaa asagu midka aad wax ka dhegaysanaysa ma tukadaa ya qofka ku dhahaya warskadii salaadaadii ma jirto ma aadan xiran horta asagu ma tukadaa see wax uga dhegaysanayna qof aan tukan dadka waxyaalaha fashiliya waxaa aad ka mida maantuu maqnaanaa cashara iskoo saara maalinkuna maqnaanaa waa iskoo saarme ama wuu joogaa laakiin wax ma akriyo marka dambe isku badanayaan waalid baa ii yidhi wiilkii imtixaan ma geli karo waa isku wareeray maxaa dhacay casharaa isku batayoo imtixaan ma geli karo keligiisa isla hadlaaya meel fadhiya murugta adaa isu keenay inaan macalimiinta aan dhahno macallin hebelow imtixaanka siduu u imaanayaa taas ma dhahno waana jeceshii in la idiin sheega isugu imaanayo